goobtii maqaayadda ay ka fadhiyeen si toos ah u abbaaro Bilaal Bushaawi iyo saaxiibadii la fadhiyay isla markaana halkaa shaha ku wada cabayay dabcan ilaa dhowr xabadood ayaa ruuxaasi bastoolada ku hubaysan waxa uu ku furay Bilaal Bushaawi ujeedkuna dabcan wuxuu ahaa inuu halkaasi ku qaarijiyo Bilaal Bushaawi isla markaana la tuusan yahay in ujeedka iyo weerarka uu si toos ah Bilaal Bushaawi ugu socday Bilaal Bushaawi laba xabadood oo ruuxu hubaysnaa isla markaana maqaayadaasi ugu soo galay oo ku riday ayaa midu sartay dhaawac saasna uma isu gaarsiin si ay noo sheegeen dadkii xaaladiisa la socday isla markaana dhaqaatiirtu ay kamid ahaayeen iyo sidoo kale qaar saaxiibadiisa oo hadda kula sugan isbitaalka magaalada Muqdisho xaaladiisa caafimaad loola tacaalayo Bilaal Bushaawi sidoo kale waxaa la sheegay in xabad kale oo ah midii lagu weeraray isla markaana la doonayay in lagu qarajiyo in qayb kamid ah qaybta kore ee jirka inay ku dhacdo isla markaana xaaladdu sidii la moodayay aysan ahayn dabcan waxay noo sheegeen saaxiibada halkaas ku sugan in xaaladda Bilaal Bushaawi 100% ay aad u soo hagaagayso isla markaana hadda laga soo bixiyay qaybtii gargaarka degdega ama emergency-ga waxaa la sheegay in hadda la jiifiyay qaybta bukaan socodka isla markaana xaaladiisu ay tahay mid aad u wanaagsan isla markaana dadka u imaanaya oo si aad u salaamay isla markaana dadku wajoodu aad u kala garanayo qaar ka tirsan saaxiibada TikTok-ga saaxiibka kula ah oo halkaa ku sugan oo aan la xiriiray isla markaana waxay ii xaqiijiyeen in xaaladda Bilaal Bushaawi ay aad u wanaagsan tahay goobtii lagu weeraray dhacdada ugu yaabka badan ayaa waxay ahayd in ruuxii falkaasi geystay ee ka soo gudbay qaybtii albaabka dadka lagu baarayay ee u soo gudbay gudaha maqaayadda isla markaana weerarkaasi u geystay Bilaal Bushaawi iyo saaxiibadii la fadhiyay in uu goobtii isaga baxsay isla markaana halkaasi oo ka baxay dabcan ma jirin wax laamaha ammaanka ah wax ilaalada hoteelkii ama maqaayadii weerarkaas oo ka dhacay falcelin ay sameeyeen iyo maamulkii oo ku aadanaa in ugu yaraan ruuxaasi la qabto ruuxii si caadi ayuu isaga baxay marka uu dadkii dhibaateeyay ciidanka booliska iyo kuwa barcadda ah ee nabadsuguda ayaa halkaas soo gaaray waxaa la sheegay in maqaayadii albaabada la isugu dhuftay isla markaana qaar ka tirsan shaqaalihii iyo maamulka su'aalo la weydiiyay isla markaana qaarkood la watay dabcan laamaha ammaanka ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya markasta oo fal noocan oo kala ama qof la dilo ama la dhaawaco waxa ay sheegaan in laamaha ammaanku ay ka daba tag wadaan isla markaana falku uu yahay ka hortag iyo ka daba tag laakiin inta badan bulshada reer Muqdisho ama dadka Soomaaliyeed ma arkaan laamaha ammaanka waxyaabaha ay ka hortagaan marka laga reebo markii falkii ama dhacdadii dhacdo oo ay sheegaan in waxyaabo ay fashiliyaan taasi oo ah waxyaabo inta badan dadku ay la yaabaan falkii oo dhacay in laamaha ammaanku ay dhahaan waan fashilinay ama ka daba tagii ayaan ku raad joognaa dabcan xaaladda caawa magaalada Muqdisho ayaa waxaa aad looga dareemay cabsi iyo qalqalgelin maadaama maqaayadihii iyo goobihii lagu tuhmayay in dadku ay ku shahan ama isugu yimaadaan la isugu soo